waxaa sharaf weyn ii ah in aan kulankan kalfadhiga 55aad ee golaha baarlamaanka Puntland oo ka dhacaya maanta xaruntiisa Garowe aan uga soo wada qayb galno dhammaan waxaan si gaar ah uga mahad celinayaa guddoonka iyo golaha wakiilada ee Puntland casumaadda ay u fidiyeen labada gole ee ku matala Puntland oo sida la ogyahay abni ah diyaarsan wax 10 sano ka badan ka shaqeynaysa shuruucda iyo nidaamkaas ayaa waxa la diiday inay qabsato waxaan halka runtii dadka Soomaaliyeed rabaa inaan u bayaaniyo waxa golaha wada tashiga qaranka ka socda ma aha wax ummadda Soomaaliyeed danteeda ah Puntland meel danta Soomaaliyeed lagu hayo kamana tagi doonta hadii laakiin waxa noo soo baxday golaha wada tashiga qaranka hadda jira sida uu dhigan yahay inuu nuxurkii beelay waxay Puntland mar walba garab taagnaan doontaa cid kasta oo doonaysa inay sharciga iyo dastuurka ku taagnaato waxaan maanta halka rabaa inaan fariin ugu diro dhammaan mas'uuliyiinta dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka ah mas'uuliyad baa ka saaran ilaalinta dastuurka ay lagu doortay dastuurka dawladaha Puntland iyo Galmudug iyo Hirshabeelle waxa mas'uul ka ah madaxda loo doortay ee dawladahaas dawladda federaalku waxay ku korjoogtayn doontaa haddii dastuurka ay dhigteen ay hareer maraan laakiin dawladda federaalku ma aha laha awood iyadu ay ku baajiso ama ay ku ogolaato ama doorasho ama xeerar kale oo dalkaasi deegaanadaas ay leeyihiin waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaysan isku khaldin awoodaha dawladda federaalka ah iyo awoodaha dawladaha xubnaha ka ah meesha sartu ka qurmayso oo dadka Soomaaliyeed lagu beer la xawsanayo waxa weeye in dastuurkii iyo shuruucdiisa lagu tunto oo madaxda heer qaran ay mararka qaarkood dadka ku beer la xawsadaan midnimada Soomaaliya ilaalinayna dawladnimada Soomaaliya hore u wadaynaa iyagoo ajenda gaar leh waxa daliil u ah xubnaha baarlamaanka halka fadhiya waxa loo keenay sharci aysan akhrin oo aysan arag waxa lagu beer la xawsaday difaaca dalka ayaa dawladda Turkiga naga difaacaysa Ethiopia iyagoo sabcinaya gacmahooda taagan shalay madaxweynuhu wuxuu lahaa waan uga mahad celinayaa heshiiskii ay galeen ee batroolka lagu baarayay waxyaabaha yaab kale ee soo baxay weey marka madaxda dawladda federaalka waxay ku hadlaysto inay ka fiirsato weey maxaa yeelay waa mas'uuliyiin hadalkoodu waa wuxuu noqonayaa ama xeer buu noqonayaa ama siyaasad buu noqonayaa dalka jihaysa ee runtii arrimahaasi waa arrimo ka hor imaanaya mustaqbalka dalkan oo aan